waxaad kala socotaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda bariga gobolka Galgaduud iyo guulaha ay ka gaareen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee kaashanaya dadka deegaanka. Xogihii ugu dambeeyay ayaan halkan inkula wadaagayaa daawadayaal. Waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka inoo share gareysaan, sidoo kale tan leegta aad la dhacdaan YouTube-ka Haldoor Media-na aad subscribe tiraahdaan si aad mar walba ula socotaan xogihii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka dhaca gobolada dalka Soomaaliya. Mahadsanidin. Aan ku bilaabay bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaa ka socda howlgal ballaaran ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada dib u xoreynta ee loo yaqaan Macawisleyda oo iskaashanaya, waxaana guulo waaweyn laga gaaray oo horumar ballaaran laga sameeyay dagaaladaasi ka socda bariga gobolka Galgaduud. waxayna ciidamada dowladda ay kaashanay dadka deegaanka ay 4 jiha ka weerareen degmooyinka Galhareeri iyo Ceelbuur. sidoo kale waxaa maanta duqeyn xooggan ka dhacday isla gobolka Hiiraan wabiga jiinkiisa, iyagoo goynaya kooxihii argagixisada Al-Shabaab si ay gurmad ugu fidiyaan dagaalka xooggan ee ka socda bariga gobolka Galgaduud. deegaanada horumarka laga sameeyay waxaa ka mid ah dhanka deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud, iyagoona maanta ciidamadu ay ka ruuqaansadeen halka iyo dac, iyagoona u sii gudbaya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Ceelbuur oo ah degmo istiraatiiji ah ayaa waxa ay wajahaysaa dagaalo xooggan oo kooxaha argagixisadu ay ku galayaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen gulufkaasi xooggan ee ka bilowday bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. dagaaladani tin iyo markii ay bilowdeen waxa ay si isdaba joog ah guuluhu u noqonayeen ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka, maadaama shacabka halkaasi ku dhaqan ay inta badanba gumaysiga iyo sidoo kale baada joogtada ah ee kooxdaasi argagixisada ay mar walba ka qaado ay dadku ka biyadiideen. taasina ay keentay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay isu kaashadaan dagaalka ka socda bariga gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmooyinka Galhareeri iyo degmada Ceelbuur oo ay halkaasi haysteen muddo 15 sano ah kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ee ururka Al-Shabaab. dagaaladani tani markii ay bilowdeenba waxaa socday in deegaamo badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya lagala wareego kooxaha argagixisada, iyagoona taasi ay cabsi gelinayso in awoodoodii ay aad u weeqantay. halkaasna laga dareemayo in ciidamada dowladda iyo dadka deegaankuba ay horumar dhanka guulaha ay ka gaarayaan. dagaaladani ayaa si goobjoogo ku sugan degmada Ceelbuur oo inoo xaqiijiyay waxa uu inoo sheegay inay jiraan in kooxaha argagixisada ay gabi ahaanba isaga baxeen degmadaasi Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, dadkana ay ku wargeliyeen in ay baneeyaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. sababna waxa ay uga dhigeen in magaalada ay ku soo wajahan yihiin waa sida hadalka u dhigeen kooxo rida ah ee kala jeedaan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. goobjoogaha sidoo kale waxa uu sheegay in goobo ganacsi ay ku lahaayeen halkaasi kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay gabi ahaanba fuqsadeen lana carareen, howdkana ay la galeen. dadka deegaankana ay ugu goodinayaan in ay baneeyaan magaalada, haddii aysan baneyna ay ka diri doonaan dhammaan dadka ku hara magaalada inay mid u toogtaan. hadalkani ayuu noo xaqiijiyay goobjoogahaasi ku sugan gudaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. sidoo kale goobjoogo ku sugan degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud, halkaasna ay tahay fariisinta ugu weyn ee kooxda argagixisada ay ku leedahay magaalada Galhareeri, in ay jiraan cabsi xooggan oo soo wajahay tan iyo markii ay bilowdeen howlgalladan. goobjoogaha waxa uu noo xaqiijiyay in ay jiraan dad fara badan oo ku sugan gudaha deegaanka Galhareeri ama degmada Galhareeri ayna cabsi xooggan soo wajahday kadib markii kooxda argagixisadu ay dhammaan galabta isugu yeereen dadkii halkaasi ku sugnaa. waxayna u sheegeen in dagaal kooxo cadow ah uu soo wajahan yahay, ayna kala jeedaan ciidamada dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda. aysan ogoleyn in halkan degmada Galhareeri hal qoys oo ka mid ah qoysaska degan oo ku haro, taasina ay ku sababeynayaan in ay baneeyaan goobaha ay dhammaan qabsanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. waxayna u sheegayaan dadka in ay jiraan cabsiyo fara badan iyo sidoo kale dagaalo qorsheysan iyo qaraxyaba ay ka fulinayaan degmooyinkaasi, iyagoona dadka u sheegaya in ay baneeyaan. goobjoogaha
wuxuu noo sheegay in mas-uuliyiinta kooxda argagixisada ee halkaasi ku sugan gebi ahaanba ay cabsi xoogan wajahayso, sidoo kaleetana idaacaddii Andalus ee halkaasi ku lahaayeen ay galabta dhammaan agabkeedii furfureen, dhulkana dhigeen ateenadii idaacadda Andalus ay ku hadli jirtay afka kooxda argagixisada Al-Shabaab. waxaana sidoo kaleeta inoo xaqiijiyeen goobjoogahaasi ku sugan deegaamada Galhareeri ee gobolka Galgaduud in ay jiraan mas-uuliyiin sare oo ka tirsan kooxda argagixisada oo la meel ay u ciirsadaan, iyagoona lagu dhex arkayo gudaha degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud. waxayna baabuurtu ciidamadaasi ay wataan kooxda argagixisada ay dhex mushaaxayaan ama ay dhex wareegayaan gudaha degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud. taasina waxay cadeynaysaa in cabsi xoogan ay wajahayaan kooxda argagixisada ee halkaasi haysta. goobjoogaha oo hadalka noo soo gabagabeeyey waxa uu noo xaqiijiyey in ay jiraan dhammaan goobihii ay halkaasi deganaayeen kooxaha argagixisada in ay baneeyeen dhammaan agabkeena ay kala baxeen, halka isbitaalkii ugu weynaa ay ku lahaayeen degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud ay maanta sariirihii iyo sidoo kaleeta agabkii caafimaadka ee halkaasi yaalay dhammaan ay qaateen. ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ayaa horumaro ballaaran maanta ka sameeyey dhanka bariga gobolka Galgaduud, waxayna dagaal xoogan oo iska caabin ah ay kala kulmeen kooxaha argagixisada ah ee halkaasi ku dhumaaleysanaysay. saraakiil ka tirsan ciidamada deegaanka ee halkaasi ku sugan ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ay jiraan in dhammaan wadooyinka soo gala degmada Ceelbuur iyo Galhareeri ay kooxaha argagixisadu ay dhigeen miinooyin ay ku dhibaateynayaan ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka. hase ahaatee sargaalkani ka tirsan ciidamada macawisleyda waxa uu yiri wax ay noo dhibayso ma jiraan qaraxyada ay duugeen kooxahan argagixisada ah, waxaanan mar walba u taaganahay in dalkeena iyo dadkeena aan u geeriyoono, sida uu hadalka u dhigay taliyaha macawisleyda ee aan qadka telefoonka kula xiriirnay. waxaa jiroo kale in ay dadka qasbayaan xoolaha inay ka qaataan oo dadka leeyihiin keena xoolaha aan isku difaacnay. taasina wuxuu sheegay in taliyaha macawisleydu ay ka hor yimaadeen dadka deegaanka, haddana ay dhiifoon gooniya u yeesheen in cadowga ay ogaadeen dhagartiisa iyo sidoo kaleete dhibaateynta uu ku hayo shacabka halkaasi ku sugan. taliyaha macawisleyda ee ku sugan deegaanada bariga gobolka Galgaduud howlgalkana ku jira wuxuu noo xaqiijiyey in deegaanada Barijeed iyo sidoo kaleete deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada Ceelbuur ay ku jirto deegaanka Wabxo inay gacantooda ku jirto, haddana la xaqiijinayo amniga degmada Wabxo ee gobolka Galgaduud. taliyaha macawisleyda waxau sidoo kaleeta sheegay in dagaalka ilaa hadda wax iska caabin ah oo ay tilmaamaan aysan ku arkin kooxaha argagixisada ah ee halkaasi ku sugan. waxa uuna sheegay in meel walba ay ka cararayaan ayna banaynayaan, taasina ay tahay fulaynimo. aaway diintii ay sheegayeen inay difaacayaan, aaway jannadii iyo xuuralcayntii ay isku sheegi jireen, ayuu yiri taliyaha macawisleyda ee aan qadka telefoonka kula xiriiray. sidoo kaleete dhanka saraakiisha dowladda federaalka waxa ay sheegeen in dagaalku si qorsheysan oo garba siman ah oo uga socdo gobolka Galgaduud. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, halkaasna lagu dejinayo shaxda iyo istiraatiijiyadda lagu qabanayo degmooyinka muddada dheer ay haysteen kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ayaa wajahaya cabsi xoogan kadib markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaankaba ay bilaabeen guluf xoogan oo looga soo horjeedo kooxahaasi argagixisada ah.